in ka badan 20 dal oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galeen tartan ama barnaamij lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka ee lagu qabtay dalkaasi Malaysia sida warkan uu ku soo diray Axmed Abuukar Ashari. in ka badan 20 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa waxa ay ka qayb galeen barnaamij lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka kaas oo lagu qabtay jaamacadda University Malaysia Perlis oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan UNIMAP kuna taala koonfurta caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur. barnaamijkan oo sanad waliba xiliyadan oo kala la qabto ayaa waxa lagu soo bandhigaa hidaha iyo dhaqan waliba ay leeyihiin dalal fara badan oo ardadoodu ay dhigtaan jaamacadda University Malaysia Perlis iyadoo arday fara badan oo Soomaaliyeed ay ka qayb galeen barnaamijkan waxayna halkaasi ku soo bandhigeen ciyaaro iyo cuntooyin macaan oo dhammaan dadkii ka soo qayb galay barnaamijkaasi ay si aad ah ula dhaceen waxaana xusid mudan inay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin fara badan oo ay ka mid yihiin maamulka sare ee jaamacadda University Malaysia Perlis madaxa qaybta internationalka ee UNIMAP mas'uuliyiin ka socota gobolka Perlis iyo xubno ka kala socda bulshada rayidka kuwaas oo dhamaantood ah guddigii qabanqaabada iyo kormeerka bandhig dhaqameedkan lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka iyadoona Soomaalidu ay ahaayeen dadkii ugu shacbiyada badnaa ee ka soo qayb galay barnaamijkaasi. ujeedada laga leeyahay barnaamijkan ayaa ah in la ogaado dal waliba iyo dhaqankiisa iyadoona dalalkii ka soo qayb galay barnaamijkan ay ka mid yihiin Malaysia, Soomaaliya, Hindiya, China, Saudi Arabia, Yemen, Sudan, Uzbekistan, Philippines, Indonesia, Thailand, Turkey, Germany, Nigeria iyo wadamo dhowr ah oo ah kuwa ugu firfircoon ee ka soo qayb galay barnaamijkan. dhammaan dalalkii ka soo qayb galay barnaamijkan ayaa waxa wajahooda ka muuqda sidii ugu faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan barnaamij dhaqameedkan lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka. ugu dambeyn waxa ay suurta gashay in mikrofoonka TV-ga Somali Channel la dhex qaado qaar ka mid ah ardadii ka soo qayb gashay barnaamijkan iyagoo cabiraya dareenkooda ku aadan ka qayb qaadashada barnaamij dhaqameedkan lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Bismillahir Rahmanir Rahim magacaygu waa Cabdiraxiin Maxamed Axmed waxaan ku faraxsanahay bandhigan aan soo bandhignay maanta hidaha iyo dhaqanka iyo cuntada maashana la siiyo aan ku faraxsanahay hadiyadana la siiyay oo ay u tahay guul wacan Soomaalidu meel kasta ay joogto. Bismillahir Rahmanir Rahim runtii waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano hadiyadan oo aan runtii ku helay sidii aan u soo bandhignay ciyaarihii caawa oo ay hidaha dhaqankii Soomaaliyeed iyo runtii qadadii maanta ee lagu bandhigay dhaqamada ay ku soo bandhigayeen wadan walba ugu soo bandhigay cunadiisa gaar ahaaneed runtii waxay tahay farxad weyn iyo damaashaad inaan ku guuleysano halkaas. Bismillahir Rahmanir Rahim ma sha Allah xafladda maanta ka dhacday oo aan ku soo bandhigaynay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan ku soo bandhignay meeshan ciyaar aad u yaab leh oo taageerayaasha meesha ka soo qayb galay iyo dadka meesha ka soo qayb galay aad ugu farxeen. Bismillahir Rahmanir Rahim magacaygu waa Cabdimaalig Xirsi Siyaad oo ka dhigta jaamacaddan University Malaysia Perlis qaybteeda mechanical engineering maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo bandhigno barnaamijkan aan ku guuleysanay hadiyad aad iyo aad qiimo leh aad baan ugu faraxsanahay. Assalaamu calaykum. isku soo duub ma ahan markii ugu horreysay ardada Soomaaliyeed ay ku guuleystaan hadiyado iyadoona sanadkii tagay ee 2011 ay galeen kaalinta koowaad iyagoo helay hadiyado aad u qiimo badan. Axmed Abuukar Ashari, telefishinka caalamiga Somali Channel, Malaysia.